halka waxaan isugu niminaa shucuurtayda maanta muujino dhammaanta waan ka simanay haddaan Soomaaliland nahay ma sha Allah ma waan heesay maxaan heesay halkaasaan ka heesaya halkani waa beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa waxa ka socda maanta dabaaldeg iyo sidoo kale taageero lagu muujinayo xildhibaan David Williamson kaasoo golaha baarlamaanka Ingiriiska geeyay arrinta qadiyadda Somaliland waxaana isugu yimi bulsho badan oo ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo sidoo kale arday tiro badan makarafoonka ayaa la dhex marnay waxaana weydiinay sababaha halkan isugu yimaadeen iyo sidoo kale dareenkooda waxaana yiraahdeen wallahi dareenkayga lama qiyaasi karo ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay anigoo ictiraafkayga sugaya oo leeyahay Soomaaliland ha noolaataan leeyahay aad buu dareenkayga u kacsay ma sha Allah lama qiyaasi karo lagu taageerayo qadiyadda Soomaaliland sidoo kale lagu taageerayo doodii dhawaan ka dhacday ay soo jeediyeen baarlamaanka waddanka Ingiriiska ay kaga hadlayeen qadiyadda Soomaaliland waa arkaysaan maanta caruur iyo ciroolaba in maanta Soomaaliland guud ahaan laga soo wada baxay iyadoo runtii qadiyadda la taageerayo ma sha Allah waanu faraxsanahay waanu wanaagsannahay guul baanu rajaysanaynaa inaanu guul helo waa taasoo maanta waxa weeyaan farax weeyaan waanu fiicanay Soomaaliland waxaan ka rajaynayaa Ilaahay inuu guulna siiyo uu gacan qabto uu Ilaahay ictiraaf siiyo sidaasaanu rajaynaynaa alxamdulillah waxaan isugu nimid inaanu soo dhawayno ninkii u dooday Soomaaliland madax banaanideeda marka uu ku mahadsan baanu leenahay Soomaaliland ilaahay cumrigeeda raajiyo guushay doonaysaa waxaan leeyahay Soomaaliland xorowday saxarkii saxiyo samaatay horay u socoto hagaag guul iyo gobonimo hal mid baan ka oranayaa dawladda anjaarkana ma lugu ictiraafkeena ku fadhida waxaan leeyahay Soomaaliland way gooni goosatay wayna tagtay u qira gobonimada niyaani Soomaaliland noola farxadayda lama koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan ka socdaa dugsiga 26 Juun wallahi dareenkaygu aad buu faraxsanahay maanta waxaan ku qiyaasay ma garanayo maxaan ku yiraahdaa Soomaaliland ma doonayno Soomaalilandnimadeedu waxaan doonaynaa in lagu ictiraafo caalamku waxaan ka codsanaynaa ictiraaf gaar ah sideedana loo ictiraafo maanta waa maalin weyn oo shacabka reer Hargeysa ay muujinayaan dareenkooda muwaadinimo waa maalin weyn oo ay dirayaan fariin weyn oo ah oo daaran laba qaybood mahadcelinayaan xildhibaanada dawladda Ingiriiska ee ka dooday qadiyadda Somaliland iyo jawaab cad ay u dirayaan cid kasta oo maartay qaranka gardaamada daba socota waxaanu leenahay boqortooyada Ingiriiska ay taariikh weyn bay naga dhaxaysaa oo ka soo bilaabmaysa 100 sano ka hor ku dhiirada inaad aqoonsataan noqdo waddankii ugu horeeyay ee jasiiradda qaniga ee Somaliland aqoonsiga siiya aad iyo aadna waxaan u salaamayaa TV-ga MMTV oo maanta isaguna maartay munaasabadda qayb weyn ka qaadanaya timinteeda iyo guud ahaan shacbiga reer Somaliland ee ka soo qayb galay munaasabaddan ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan waddankooda iyo qarannimadooda shacbiga dhammaan Somaliland oo dhan baan ka salaamaya waxaan leeyahay qadiyad maanta ciyaar maaha maadaama Ilaahay nagu guuleeyay Ilaahay idinkiisa aynu Ilaahay ka baryayno in calankeena iyo dalkeena goosadkeena iyo nidaamkeena ay dawladaha reer galbeedku ay nagu taageereen waxa Ilaahay ka baryaynaa calan khayr qaba iyo ummad khayr qabta Ilaahay hay nooga dhigo ummadda Somaliland waxaan leeyahay meel kasta joogaanba ha isku tirsadaan dhamaantood salaamu calaykum bismillaah kuulad maxamed aadan gurad cunaabi MMTV Hargeysa